hay'adda Camud Foundation oo wali wada barnaamijka sanadlaha ee 2 milyan minis oo loogu gurmanayo dadka danyarta ee Soomaaliland ayaa gobolka Sanaag ka daafurtay in deeq raashin la gaarsiiyo 1,000 qoys oo gobolkaasi Sanaag ku nool si ay bisha barakaysan ee Ramadaan deeqda raashinka u isticmaalaan. Deegaanada Faraguul, Sincar, Ramasle, Hulul iyo Godheli oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa hay'adda Camud Foundation deeqda raashinka gaarsiisay. deeqdan oo ka kooban bariis, sonkor, saliid iyo timir, taasi oo dadkaasi danyarta u isticmaali doonaan raashinkaasi bisha Ramadaan. Cabdiqani Maxamed Axmed oo ah wakiilka hay'adda Camud Foundation u qaabilsan gobolada bariga Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyay. hay'adda Camud Foundation maanta waxa ay joogtaa gobolka Sanaag oo ay ka daahfurayso barnaamijkii 2 milyan milis iyadoo ugu talagashay gobolka Sanaag 1,000 qoys oo raashin ah oo ugu talagashay bisha barakaysan ee Ramadaan. 1,000 qoys maanta waxa ugu horeysa aanu joognaa magaalada Faraguul iyo Sincar oo 400 oo qoys aanu ka qaybinano. halkan hadda aan joogno waa magaalada Sincar. waxa ay leeyihiin labada magaalo min 200 oo qoys oo raashin ah oo ay hay'adda Camud Foundation ugu talagashay bisha barakaysan ee Ramadaan. runtii xilligan adag haddana waxa soo gashay bishii barakaysaneed ee Ramadaan iyadoo dadku haddaba ay haysay xaalad adag oo abaar ah. hay'adda Camud Foundation waxay ka qayb qaadanaysaa barnaamijka Ramadaanta ee 2 milyan milis ayay u keentay raashinkan oo ka kooban bariis, sonkor, saliid iyo timir. waxaan rajaynaynaa qoys walba inuu ku filnaan doono haddii la haydmo bisha barakaysan ee Ramadaan. hay'adda Camud Foundation waxay sii wadi doontaa haddii la haydmo magaalooyinka kale ee gobolka Sanaag ka tirsan iyadoo gaarsiin doonta raashin la mid ah raashinkan haddii la haydmo. waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadkii walaalaha ee muslimiinta ah ee soo bixiyay raashinkan inuu ajar iyo xasanaad ka siiyo. Mas'uuliyiinta iyo dadka deegaanadaas ee hay'adda Camud Foundation deeqda raashinka gaarsiisay ayaa ugu mahadceliyay deeqdan raashinka ee la soo gaarsiiyay. anagoo ah dadweynaha ku nool magaalada Sincar iyo waliba Faraguul khaasatan anagu aan joogno Sincar waxaana soo gaaray raashinkii ay noo waday ama ay noo keentay hay'adda Camud Foundation oo ka tirsan hay'adaha ka bixinaya raashinka ee samafalka ee soo gaarsiiyay gobolka Sanaag khaasatan tuulooyinka Sincar iyo Faraguul. waxaa noo yimi raashin dhan 400 oo qoys. Sincar iyo Faraguul Camud Foundation wayna soo gaarsiisay raashinkii samafalka ahaa si fiican oo nabadgelyo buu ku fulay arintaasi. waana aad iyo aadna uga mahadcelinaynaa si wanaagsan oo nabadgelyo habsamiya ayaa hawshaas noogu dhamaatay waanuna ka gudoonnay oo ka tirsan labada tuulo waxay ka tirsan yihiin gobolka Sanaag degmada Garadag. waa halkan ku qaybinaya raashin ka kooban noocyadiisa kala duwan oo raashin qiimo badan ah. hay'adda Camud Foundation oo hay'ad khayriya ah waxaan uga mahadnaqaynaa raashinkan qiimaha badan leh ay ku soo beegtay xilligii ku habboonaa oo ay siisay dadkii u baahnaa nuglaa. aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waanu ku faraxsannahay. markhaati baanu ka nahay inay raashinkaasi si sharaf leh oo karaamo leh oo gobonimo leh dadkaasina u qaybsadeen. khayraasiyo hay'adda Camud Foundation waxayna 400 oo qoys raashinkoodii ayayna soo gaarsiisay Sincar iyo Faraguulba. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. maanta waxaan joognaa tuulada la yiraahdo Masle oo ka mid ah gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Elafweyn. waxaa maanta lagu qaybinayaa raashin ka yimi Camud Foundation oo 2 milyan ah oo ay ka waday gobolka Sanaag. runtii waan uga mahadcelinaynaa gobolka Sanaag ahaan hawsha ay ka wado. waxaan insha Allah iyana maanta lagu sii qaybin doonaa oo qaybta ka socon doontaa Galyaqa. waxa xigi doona meesha la yiraahdo Hulul. saas ay u socon doontaa ilaa iyo Garada iyo Jiideeda. aad iyo aad baan intii lagu qaybiyay baan uga mahadcelinaynaa hay'adda Camud Foundation oo aad aragtaan raashinka 100 qoysa ee halkaa hortayada ay yaala oo ay u keentay deegaankan Masle. waxaan leenahay Ilaahay idinka abaal mariyo xilli runtii waqtigu adag yahay oo abaar adag jirto Ramadaanna ay soo gashay dadkuna iska yar jilicsan yahay oo xoolihiina aan laga iibsan oo baahidu badan tahay ayay ku soo beegantay. hay'adda Camud waxayna soo gaarsiisay 100 qoys raashinkood. waxa weeyaan waa ku mahadsan yihiin annana waa ka gudoonay. deegaanku waa Masle halka waxaan ku keenay 100 reer raashinkood
waanu ka guddoomanay waxaanuna uga mahad celinaynaa wixii keenay iyo wixii ku taakuleeyey raashinkana wuxuu la soo kulmay waqtigii Ramadaan la kowsanaya insha Allah way ku afuri doonaan way ku suxuuran doonaan way ku soobi doonaan wixii bari laga bilaabo hay'adda Amoud Foundation waanu ka haynaa ka xildhibaan ahaan haddaan nahay xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Ceelafweyn ومحمد سوت التلفزيون قناة Somaliland Ceelafweyn